kormeerka madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo maanta uu ku tagay xarumaha maxkamadaha ayaa ujeedkiisu ahaa sidii wax badan uga ogaan lahaa arrimaha garsoorka. xilliga uu madaxweynuhu kormeerayay xarumahan waxa ka socotay dhageysiga dacwad madaniya taas oo madaxweynaha uu helinayo gudoomiyaha maxkamadda sare iyo gobolka Banaadir ay ku hakadeen howlkii ay ka dhaceysay si madaxweynuhu wax uga ogaado. sidoo kale madaxweynaha ayaa intii uu kormeerayay xafiisyada waxa uu la kulmay muwaadiniin taagnaa iridda hore qaar ka mid ah xafiisyada maxkamadda kuwaas oo dhageystay cabashadooda. madaxweyne farmaajo ayaa la kulmay garsoorayaasha maxkamadaha uu hogaaminayo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf waxaana aad ugu dheeraaday ahmiyadda shacabka Soomaaliyeed ugu fadhiso helidda garsoor cadaalad ah isagoo madaxda hay'adda garsoorka ka dalbaday in hufnaanta garsoorka la gaarsiiyo meel ay dadweynuhu isku halayn karaan. tan idin ka rabo oo hawshiina ah waxay tahay qofka Soomaaliyeed oo idin yimaada oo xaq raadiska ah inuusan idinka noqon qofkaas oo xaqiisa la dudsiyo inuusan idinka noqon inuu qofkaasi meesha ugu dambaysa wax ka soo raadiyay oo idinka ah inaad siisaan qofkaasi xuquuqdiisa siisaan qofka daalinka ah oo ummadda dhibka ku haya oo runtii xaq darrada wadana inaa ummadda ka qabataan inay kala caddahay wanaaga iyo xumaanta inay kala caddahay ummadda halkan timaadda islaam iyo hadda halkan igu timid halka intaan soo galayay oo ooyis waxaan hubaa kubaanku saas oo kala ah inay hor yimaadaan marka waxaa la rabaa marka naxariistii ka sokow diintiinii iyo aaminkeedin aaminay in qofkaas ooyaya uu ku noqdo oo xaqiisii la qaatay ama xaqiisii la dudsinayo isagoo faraxsan oo aaminsan inuu leeyahay dowlad iyo garsoore caadil ah. anu waxaan ka ballan qaadayaa inaan garab taaganahay waxaan ka ballan qaadayaa inaan la shaqeeyo idinkana waxaa la idinka rabaa ummadda Soomaaliyeed markay inay proud idinku noqoto idinku hanweynaato oo markay ay meesha yimaadaan qalbigu u degan yahay. madaxweynaha ayaa kula dardaarmay garsoorayaasha maxkamadda dalku inay door ku yeeshaan la dagaalanka musuqa oo uu sheegay inuu ka mid yahay waxyaabihii dalkan la haray 193 dowladood adduunka jirta waxaan ku jirnaa kaalinta koowaad ee waddanka ugu musuqmaasuq badan adduunka meeshan waa meesha lagu saxayo marka magac xumadaas iyo sharaf xumadaas iyo karaam xumadaas meesha lagu saxayo waa meesha maxaa yeelay markii dowladdu ay soo qabato laamaha kale dowladdu ay soo qabtaan qofkii ay idin hor keenaan waxa la rabaa qofkaasi hadduu yahay qof wanaagsanna inaad ku cadeysaan qof wanaagsan yahay hadduu yahay qof xunna aad ku cadeysaan qof xun inuu yahay ummadana laga qabto waxyaabaha marka nalagu dhaliilo oo la yiraahdo dowladda Soomaaliyeed waa dowladda adduunka ugu xun waxa weeye ama waxa wanaajin kara oo la qurxin kara waa cadaaladda waxa nafool xumeyn kara adduunka aan uga takornaan karnana dad islaam nahay dad islaam la leeyahay waa tuugo wax fiican ma aha dad islaam nahay aqoon islaam leh dhaqan fiican oo Soomaaliyeed leh meesha loo baahan yahay in laga soxo waa halkan ummadda Soomaaliyeed idinka u maqan haddii wanaagsan dalkan wanaagsanaadana idinka wanaajiyay haddii dalkaanu sii xumaadana idinka qayb weyn ka ah inuu xumaado laakiin annaga madaxweyne ka ahaan iyo xukuumad ahaanba waxa weeye waxaan ku boorinaynaa hawshaas aad leedihiin in aan ladinka soo fargelin sida ilaahay idinku ogyahay aad u qabataan oo ku dhisan cadaalad. garsoorayaashan ayaa madaxweynaha hortiisa wacad ku maray inay si cadaalad ku jirto ugu adeegayaan dalkan. waxaan ugu wallahi waxaan ugu billahi waxaan ugu tallahi inaan ummadda Soomaaliyeed ugu shaqeyno cadaalad. waxyaabaha uu madaxweynaha dalku ahmiyadda siiyay waxaa ka mid ah helidda garsoor hufan kaas oo madaxweynuhu hore u sheegay inuu udub dhaxaad u yahay xasiloonida dalkan ka hirgasha. Cali Baashe Cabdullaahi, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.